السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلامة. maanta video inaan soo duubo ma rabin laakiin waa karkarisay waxaa maqli jiray dhariga karkarka maxaa ka keena kuleelka walaa waa karkarisay waa idibteen saa idibteen Allah idin dhibo Soomaaliyeed intiina idhibayso saa idibteen Allah idin dhibo because waxaa maqli jiray dhariga maxaa la dhahaa maxay orgiga something like baroorta orgiga ka weyn dad waxaan arkayaa si gooni iyo ataa gareenayo meel igala qaadeen aan garanay mar walbana fiirsada waxa sameynayaan social media qaali xaq taagnadii dadka heeganka u ah wax xumaanteeda ku faraxsan waay idibaateynaayo waay yacaynayo waay dadka igu diraayo waay walaalayaalo waligeey meel inta idin soo fadhiistay kii ka ciidan ma dhihin adikoo caaysan xataa inta meel idin soo fadhiistay idima caayin sida ila dhaqantay idima caaynin barefadkiina kama hadlin noloshiina ma aqaani nolosheeda ma taqaani waligeena caayish ma wadaagin dad waxa tihiin social media ka arko korkaas waxay adiga aad noo sheegtiin baan arkaa aniga sidoo kale waxaan idin sheegan baad aragtiin qof iyo yaqaan maanta dadka caanay kuma jiro oo personal iyo yaqaan mi fahanteen marka waa idibteen saa idibteen Allah idin dhibi Soomaaliya waxaan rabaa heer waxaa marowsay aan dhahdeen guriga kaamrada u xirtay soo ugu nooshahay naa guriga kaamrada maxaa u xiratay maxaa shaqaalo qabsatay hadaad gaariya tahay horta saa u noolahay intaan meel idin soo fadhiistay idima dhihin saa u noolaadaa taasna adinka qalada idinku tahay ina aniga nolosheeda private ka hadashiin qalada idinku tahay walaalayaal kaamirada horta duruuf iyo danba u xirtay shaqaalana maanta gabadheeda inaan u dhiibo gabar Soomaali ah ani gabar madow ah iyo gabar Soomaali ah xoogaa gabar Soomaali aaminaya saasay taa waxaan u dhiibtay gabdhuhu Soomaalida ayagoo dhib badan waliba way dhib badan yihiin wallahi qofkii Nairobi dadka jooga badan waa loo shaqeeyaa gabdho waxaa jiraan loo shaqeeyo lagu saa isku dul saarin gurigooda joogaan laakiin qof shaqeeya ah banaankaas ka soo shaqeystaa oo haye waxa dhigi doontiin hadana ninaan ku qabay maxaa u shaqeynaysa horta mid walba jawaabteeda inaa idisiyaana maanta diyaar u ah inkastoo waxyaabaha qaar aan rabin inaa idila share gareeyo horta aniga nin markaas waa qabay sax waaye gabar yara aabaheed u nool yahay aan haystaa oo wax walba u sameeyay laakiin waxaa jirto oo kale nolol adinka aadan ogeyn qofka bilaadankaana uusan mar walba idila wadaagi karin aniga waxaan u shaqeeyaa nafteedana ma hayn gabadheedana ma hayn gurigeygana ma hayn reerkeyga u shaqeeyaa gabar wiil u ahay gabar wiil oo marka idin leeyahay macnihiisa ma hayn inaas gabdha ila dhalan wiilalna ila dhalan waa ila dhashay labadaba alxamdulillah kuwiga waaweyn iyo kuwiga yaryarba waxaa kaloo jirto gabadheeda sababta intaan naag gabar Soomaaliyeed ama gabar shaqaala intaan ugu tago curadeedii aan banaankaas u aado sababta ugu kaliftay aniga hooyaday walaalahay iyo ilmo agoon ah oo anigu aan aabo u ahay aan shaqeeyaa ilmo agoonta marka idin leeyahay aniga aabahay waa nool yahay alxamdulillah walaashii curada ilmiheeda 5 ilmood oo yar yar oo mid qaan gaar oo isku jiro oo yar yar ah oo maanta agoon ah aan u shaqeeyaa markii laga soo tago hooyaday iyo walaalahay kale kuwaas inta meel lagu soo fadhiistay in la bariyo ma rabi in la dhaho ilmahaas wax u caawiyo ma rabo taas waa ka dhiman karaa shaqaalaha hadda sheegaysin xitaa oo noqon karaa bilmaamsin ya inta dadaal karana waa dadaalaya inta nafta ugu jirtana reeraan qof aniga family-geyga inuu ag soo fadhiisto ilaahay kuma kalifo because dad fiican ma tihiin ana hadda ka hor hal mar idin soo ag fadhiistay idin dhahay waxa la dhahay saas waa ii duceyseen qaarkiin ilaahay dartiisa ugu duceeyeen ilaahay dartiisa ay jeclaayeen laakiin maanta maxay u caaysiin mutaqaaniin qaal dileeyahay saan ahayd oo in yar ay dhahdo inta kale maxay u caayaan adoo ma dhaliisan ku duceyn waxa ka dhigteen in aniga oo ilaahay ii qoran ilmahan oo ilaahay ii soo wadin oo ilaahay adiga amarkiina igu siiyay amarkiina ina adiga isiiseen oo kala ka dhigo siin raasiyo ma fahanteen ani ma dhaliis ma ahayn laakiin waqtiga ilaahay iigu talagalay ayaa gabadha la siiyay qofkii markaas la iigu talagalay inaan u dhalo bisaana u dhalay ma fahanteen okay waxa kale oo rabaa guriga kaamirada sababta ugu xirtay aniga maadaama banaanka ka aad way dukaana leeyahay business ay furan businesskeygaas waxa waaye family-keyga galinka hore ay furaan sideedana business qofka iskale special hadduu caan yahay inuu dhex joogo ayaa qurux badan
أنا غير كيجا وأقدقين قولي دكان كيسكو دقين ويتجا أيها فران أيها تشوغان لكني دتك مركي قفك أولي عنك haddii laga soo tago social media dadka ku jira xataa haddii laga soo tago qofka businesska iskale inuu dukaankiisa asaga meesha u joogo businesskiisa ku xirantaa haddana qofku markuu yahay qof oo caana mastili bahanta dhan waa la weydiinayaa markaan aniga joogo iyo markaan joogin isku shaqada xitaa isku sii ma noqonayso saas darteed aan uga tagaa aniga qof iga hool nacab ma jiro adduunka inaan banaanka ka soo shaqeeyo oo maanta aan inta ka shaqeeyo ma jecli waxaan jeclaa inaan inta gurigeyga joogo sida dadka kaleeto baawur qaato dahab isku raro banaanka saa u leerta u jiifto idin faanfaano taa waa samayn karaa laakiin ina gaajo cideeda ilmahaas yarka awoontahay maanta ay u baahdaan wax aniga intaan awoodeeda leeyahay waxaan awoodimo waxaan awoodeeda intaan awoodi karo inaan u dadaalo intaan adiga idii suuroo lahay ayaan ka jeclaaday gabadhaana marka rabaa inaan idii soo sheego halaas waa sheekada yacni keentay guriga sababta kaamirada ugu xirtay qolkayga jiifka sababta ugu xirtay waxa waa gabdheeda waa la seexiyaa maalintii markii la seexiyo kaamirada qolka way ii fiirin waa ka fiirsana cunugteyda inaan ka fakaro hooyanimadeeda ay farta dareen ilaahay isiiyo waa adigu haddaad dhagax tahay anigu dhagax miyi hooyo dhanaa badankeed saas inkasta hooyooyinka qaar kuwa ilmaha banaanka ku tuuraaba hooyo waa aysa isku mid ahayn laakiin majority markii la fiiriyo hooyo waa la sii kala naxariis badan yahay laakiin hooyo waxa waaye mar walba waa nabar waxa waaye ku yaala haddii ilmaheeda ka maqan tahay qalbigeeda xataa haddii laysoo waa qac wadna i dhahaa ama meela ka dhacda lagu dhahaa ma fahanteen so aniga inaa adika gabadhaas igu kii soo jeedisay iyada idinkugu jeediyo waa awood waa inkiri kari waa idin dhihi kari aniga gabdhaha ma aqaan fiisi ugu raasani hadhow waa cay lahaydeen gabadha islaameed naftaa ka qaadi lahaydeen laakiin runtu waa qurux ma noqoto way fool xuntaa runtu laakiin beentu waa qurux badan tahay inaa adiga iska kiingado idii suuroodo ilaahayga uuntane aana ka baqin taas ma qurux badno marka aniga waxaan go'aansaday wixii markaas jira inaa idii sheego level aad dhahdeen levelka markaa ka hadlaya hadalka qof shaqo ka imaato oo daalan oo xanaaqsanida ahay waqtigaas oo la nabaay nab iyo naar yaa kulule dhahan soomaalida nabaa kulule dhahan laakiin anu still naartaa kulule aaminsana laakiin qofka markii la nabo wuxuuse in laga sheego uu gubanayaa levelkaas kama wada yacni ani iyada shaqo iskuma nihiin dharaan ka hadlayay gabadhaan dhar haddaan siiyana kaamarada intaan soo hor fadhiisto ma qurux badnayn inaa idin dhoo heblaayay ama gabadha kaamarada dharaa siinaay inaa idin dhiho macnaha markhaati maa idinkaga dhigi lahaa nolosheeda wixii guriga hoosteeda ku jiro may gabadha aniga ma gumaysan xataa hadday sanad ila joogila bil ila joogila waaba dhihi lahaydaan gabadhaan waqti badan kula joogto wax xumaysa laakiin qof maalmo yar kula joogo dadku markay isku cusub yihiin iyo markay muddo wada joogaan isku dareen isku dhaqan ma noqdaan bas qofkii waa isdhex gasheen waxaad rabi waxaad dhigi kartaa war waxaa ma rabi qofka gabadha markay soo shaqo tagaysa ee guri u soo shaqo tagaysa siday rabto iyada gurigaas kama helayso qofka loo shaqeynayana sidoo rabo asna qofkaas kama helayo adigu waxaaga inaad samaysato qofkaasna gurigiisa suu ku dareemi lahaa kaligiis markuu yahay kuma dareemayo guri islaameed markaad special shaqeynaysidna maba ku jirta waxay tiri gabadha baanbaasta ka bedel ay tiri oo baanbaasta walaalahay haddaan ku rixtaa ka bedel gabadha lacagta maxaan kugu siinaya soo gabadha ma ahayn cunto karis ilaa ma aada aqoonini gabadha bis ii haayaan ku uriye gabadhaas ii ilaaliyaa ku dhahaye intaa aniga joogana gabadheeda anaaba haystee yaa ma wax xunbaa haddaan ku uri baanbaasta ka bedel midda kale haddaan ku uri ninkaaga waxay tiri ninkaaga igu hordhaada ani horta ninkayga kuguma hordhigin sistare ilaahay kamaada cabsan beenaad sheegtay adaa hadda laakiin malaayiin qofood hortooda ku dhahay adaa iscaayay anigu kumaba caayinba hadda laakiin anigu kuma dhihin ilaahayna waa ogyaa ninkayga aan markaas wada joogno kuguma aanan dhihin been hayga sheegin beentana inaad ku raadiso israaqadaas beri waad ku guban doontaa because gabar walaashaa ah oo hooyaa oo shalay aad gurigeeda aad joogtay oo aad ceesh maalmo yar aan wada joognay aan wadaagteen oo aan kil i kac aan ku kala tegin oo xumaan aan ku kala tegin haddaan isdagaali lahayn oo xumaan ku kala tegi lahayn yes waa isdhiilaa gabadha cuqdadii ku haysaa laakiin xumaan kuma kala tegin beentaa maanta aniga ii sheegaysa isla beentaasoo kale hore iigu sheegtay isla beentaas aa maanta dadka u sheegaysa isla beentaasaa iiga tagto waxay ugu tiri aabahayaa lasoo dhejiyey waa baxaya waxaa ku abaaya waa maadaama shaqeyna inta qobar raadsana xataa la joogaa iga tiitay waana iska baxday ma ku fasixino lacagtaada soo kuma siin maxaa marka beenta iiga sheegay
على كل حال محكمة إلهي تكون سوينا هذيك إيه أيضا